waqtigan waxaa jiro shakhsiyo dhexdeena ku nool kuwaas oo ku raaxaysanayo karti aan caadi ahayn. haddaba barnaamijkeena waxaan ku falanqayn doonaa maanta 6 qof oo leh karti aan caadi ahayn. muuqaalo la yaab leh oo laga duuba ayaan ku arki doonaa barnaamijkeena. muuqaaladaas oo aad ku xiiso geli doona inta aad daawanaysid, balse intaan muuqaalka gudaha u gelin fadlan daawade muuqaalka like noo saar si ay dhiirigelin uga noqoto una soo samayno barnaamijyo kale oo ka xiiso badan kuwani. haddii aan ku bilowno nambarka 6, ninkani waxaa loo yaqaanaa Frank Richards. ninkani Frank ayaa leh karti mucjiso ah, taas oo ah in uu leeyahay calool aad u xoog badan. mucjisada calooshiisa ay leedahay ayaa ah haddii aad ku dhufato calooshiisa shay walba oo adag in uusan waxba ka taraynin, xitaa haba ahaadee shay si kasta u culus. Frank ayaa yidhi, haddii aad calooshayda ku dhufataan shayga ugu adag adduunka, waxba xanuun ah ma dareemo, waxayna ila mid tahay shay khafiif ah adiga oo igu dhuftay. ninkan calooshiisa ayaa dad badan aad ula yaabeen, waana mid ka mid a mucjisooyinka ninkani lagu arkay. lambarka 5 oo barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono, ninkani waxaa loo yaqaanaa Allen Robert. ninkani ayaa lagu naanaysaa caarcaaradii Faransiiska. sababta keentay naanaystan waa in uu karti u leeyahay fuulidda meel kasta oo aad u dheer, asiga oo aan ku fuulin jaranjaro ama shay kale oo u fudaynaya inuu meeshaasi fuulo. wuxuuna adeegsanayaa keliya ninkani gacmihiisa. ninkan ayaa markii uu jiray 11 sano wuxuu fuulay dabaq 8 biyaano ah. sanadkii 2011 ayaa wuxuu fuulay mid ka mid a dabaqyada ugu dhaadheer caalamka, kaas oo lagu magacaabo Burj Khalifa. dabaqani ayaa wuxuu ku yaalaa Dubai, waana mid ka mid a dabaqyada ugu dhaadheer caalamka. wuxuuna fuulay asiga oo aan wax jaranjaro ama shay kaloo u fudaynaya haysan ayuu fuulay, wuxuuna ku fuulay keliya gacmihiisa. arrinta ninkan uu samaynayo ayaa arrin aad iyo aad dadka aad ugu yaabisay, waana dhacdo ay adag tahay in ay sameeyaan dadka daafaha dunida joogo. qofka afaraad ee ka mid a dadka kartida la yaabka leh waxaa loo yaqaanaa Philip Makeup. ninkan ayaa u dhashay dalka Ireland. ninkan ayaa aad u bartay cilmiga shinnida, wuxuuna aad ugu shaqeeyey shinnida asiga oo u horay noloshiisa. xitaa wuxuu bartay qaabka ay wax u qiyaamayso shinnida, ilaa heer ay ku naanaysaan dadka boqorka shinnida. mucjisada ninkani uu leeyahay ayaa ah in uu korkiisa shinnida ay aad ugu soo buuxsami iyadoo aan noloshiisa waxba yeelin, ilaa xitaa uu heer gaaray in afkiisa iyo dhegihiisa xitaa ay degto shinnida. waana mucjiso dadka caalamka oo dhan ay aad ula yaabeen, waana karti ay adag tahay in uu sameeyo qof asiga oo kale oo dunidani jooga in uu sameeyo. qofka 3 ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxaa loo yaqaanaa Kevin Roshansin. ninkani ayaa aad u bartay cilmiga habdhaqanka xayawaanada. ninkani ayaa wuxuu leeyahay karti aan caadi ahayn. kartidaas ayaa ah in uu libaaxyada uu aad saaxiibo ula yahay, asiga oo la ciyaarayo libaaxa, weliba asiga oo libaaxa afka ka shushuminayo. jacaylka iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysa darteed, ninkani ayaa arrintan ku jiro muddo 20 sano ah, asiga oo habdhaqanka libaaxyada agtiisa ay ka tahay wax caadi ah. qofka 2 ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waa ninkani loo yaqaano Radha Krishnan Philo. ninkani ayaa ninka ugu xoog badan dalka Malaysia iyo caalamka intiisa kale. ninkani ayaa haddii aan soo qaadano mid ka mid ah mucjisooyinkiisa, wuxuu jiiday tareen miisaankiisa gaaraya 297 tan, asiga oo jiiditaankaas tareenka u adeegsanaya keliya ilkihiisa. asiga oo tareenka jiiday masaafo 3 mitir ah. wuxuuna ninkan sidoo kale uu leeyahay daan aad iyo aad u awood badan, kaas oo dadka ay aad ula yaabeen. waana nin mucjisadiisa caalamka oo dhan ay aad uga yaabisay, waana ninka keliya ee loo aqoonsada caalamka oo dhan in uu xoog badan yahay.
qofka koowaad ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxaa loo yaqaanaa Ashriti Ferman. ninkani muuqaalkiisa caadi ayuu kula muuqdaa hadda, balse wuxuu leeyahay mucjisooyin badan oo la yaab leh. ninkan ayaa da'diisa wuxuu jiraa 64 sano, waana nin u dhashay dalka Mareykanka. ninkan ayaa mucjisooyinkiisa waxaa ka mid ah in uu yaqaano qaybaha kala duwan ee ciyaarta sida boodbootinta, wiifowidda, orodka qaabka rondaynta ah, asiga oon marnaba aan daalaynin. waxyaabaha la yaabka ee ninkan uu sameeyo waxaa ka mid haddii aan soo qaadana in uu mar qur ah afkiisa uu ku burburi ninkan 47 ka mid ah birahan afka leh ee dhaadheer leh ee weliba mudaca leh in uu mar qur ah afkiisa uu ku burburiyey. wuxuuna aad iyo aad u sii sameeyaa mar walba waxyaabo ay adag tahay in ay dadka kale ay sameeyaan. waana nin mucjisadiisa caalamka oo dhan ay ka yaabisay, waana nin ay adag tahay in asiga oo kale la noqdo. intaas ayaan geynaynaa barnaamijkeenna. adigase daawade, 6dan qof ee kartida leh kee kaa cajibiyey? midka kaa cajibiyey fadlan commentiga hoose inugu soo qor daawade.